الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم من نفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii cibaadada shahru ramadaan. cibaadadaasi waxay u baahan tahay inay dareen iyo dhadhan iyo macaani noo samayso noocyadeeda kala duwan. mowduuca maanta aynu ka hadlaynaa waxa weeye ladatu lcibaada, inaynu daydayno, inaynu baadi doonno, inaynu dareenno dhadhanka ay leedahay cibaadadu. taana waxaynu isugu waaninaynaa waa casharo inagu yar oo inta ilaahay uu siiye aanay badnayn, hamiga kale ee faraha badanaya iyo howlaha kale aynu ina haysto daraaddeed. shayga loo yaqaano dawqulcibaada, cibaadada dhadhankeedu sida uu yaalla iyo waxyaabaha lagu hela iyo waxyaabaha diida iyo dadkii saalixiintaa siday u heli jireen ayaynu wax ka odhan doonaa. waxaa lagu helaa mujaahadatu nafsi cala alcibaadati wa tacwiidiha maca atadaruji fi dalik. wax walba waa la bartaa. inaad qof qaafilahoo sii jeeda noqoto waad baran kartaa. inaad qof soo jeeda noqoto oo cibaadada macaankeeda naftiisa ku carbiyana waad baran kartaa. maalinba inbaa kuu kordhi karta. sidaa daraaddeed baa macnaha ay xambaarsantahay aayadda aynu akhrinay ilaahay subxaanahu wa tacaala fii aakhiri suurati alcankabuut. waxa uu leeyahy waladiina jaahaduu fiina, kuwa daraadaya u jihaadaya. mujaahadada ugu horeysa waa dagaalka nafta uu qofku la galayo xoraynayo. lanahdiyannahum subulana, wadooyinka iyaga khayr kale baanu ku hanuuninaa oo ay u horeyso dhadhanka cibaadadu. wa ina allaha la maca almuxsiniin. waxaa ka mid ah alikhaaru min annawaafil waltanwiicu fiiha cala ikhtilaafi sifaatiha wa axwaaliha. qofku inuu ku dadaalo cibaadada sunnaha inuu badsado. cibaadada wala faraliba waxay leedahay sunno la socda. sunnaha inuu kordhiyo waxa uu ku heli karaa dhadhanka cibaadada iyo macaankiisa. xadiid alqudsi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu kasoo warinayaa. rabbi waxa uu leeyahy wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba. addoonkaygu wuxuu igu soo dhowaado faralkaan ugu jecelahay buu ilahay oo ugu fadli badan. mar kastuu sunnayaasha badiyana oo uu sii badiyana waan jeclaanayaabaa ilaahay. jacaylka ilaahay uu ina jeclaadaana waa waxaynu baadi doonayno inuu cibaadaysanayno. markaasaa ilaahay xubnihiisao dhan ilaalinaya. heerkaa marka uu gaadho waa marka cibaadadu u dhadhamayso. cibaadadu waxyaabaha inoogu dhadhamaysa waxaa ka mid ah ata'amulu fii siyari saalixiin. dadka wanaagsan iyo dhaqankooda inaynu eegno si aynu ugu dayanno. waxa uu lahaa imaamka la odhan jiray jacfar ibnu sulaymaan, kuntu idaa wajadtu min qalbii qaswatan gadawtu fanadartu ilaa wajhi muxamed ibni waasic fakaannahu wajhu thukla. qalbigayga markaan ka yaro dareemo xoogaa qallafsanaana, raggii ugu wanaagsanaa cibaadada badnaa mid ka mida baan u tegi jiray maxamed ibnu waasic. kolkaasaan sidaa wejigiisa u eegi jiray. wuxuu wejigiisu u muuqday ruux dumar ahoo goblantay wejigeedoo kale. waa weji aan kariim la marin, subag la marinin, habeenkii biyaha qabow sida loo marinayo jidhfa yeeshay. sidaa daraaddeed waan ku cibro qaadan jiray. cabdillaahi mubaarak waxa uu lahaa idaa nadartu ilaa fudayl bna cayaad judida lii alxusn wamaqadtu nafsi uma kaana yabki. fudayl ibna cayaad oo cibaadada caan ku ahaa markaan u tago ee aan eego xusnigaa iisii kordhi jiray iyo cabsida iyo warwarka aan camalkaygii aakhiro ka qabo. kolkaasaa naftayda canaanan jiray. dadka qaarkoodna dee waxaa laga yaabaa inay adduunyo ku xusuusiyaan iyo arrimo kulkulul. dadka qaarkoodna ilaahay iyo aakhiro iyo diin iyo cibaado iyo wanaag aad ku xusuusato cabsii ku korodho. waxyaabaha kordhiya waxaa ka mid ah ama keena macaanka cibaadada qiraa'atu lqur'aani wa tadabburu macaaniih waalwuquufu cinda cajaa'ibih. in kalaamka ilaahay la akhriyo oo si gaara loo akhriyo. sida gaare loo akhriyaa waxa wey inaad ilaahay dhegaysanayso ood hadalkiisa dhadhaminayso oo siduu kuula hadlayo aad iyo aad u maqlayso aad u soo jeedo.
وشفاء القلوب وجلاء الأحزان وترقيق القلوب وحول أردبه قلبك هيستبع إلى هاي سجوك قد وينيا وهذا خريس أهل الجنة حال هذا أهل النار كي أحواش هذا وحكم إذا وحيابها قلبك الدمعياء الخلو بالله سبحانه إنه أضونك إلهي لقون إنه قد حال هذا قاركود siduu jecel yahay dadka ay isjecel yihiin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xaaladaha qaarkood inuu la gooni noqdo oo la dalxiiso la dabaal dego adoonku waa inuu jeclaadaa waqtiyada qaarkood inuu ilaahay ku gooni noqdo subxaana oo dajiijka iyo buuqa adduunyada iyo saxmadeeda dhan uga baydho waa arrimaan la odhan kara inaga xabsi bay taasi inagu noqonaysaa dad badan Malik ibn Mughafal imaamka la odhan jiray ayaa kaana yajlisu baytahu wahda gurigiisu iska fadhi jiray muddo dheer iska khalaaweyn jiray markaasaa waxa lagu yiri ala tastawxish kaliga aan baad fadhidaa heliya asxaabtoona lama joogtida miyaanad cidloonay qaala aw yastawxishu ma'a allahi ahad waxa uu lahaa qof ilaahay u heeshanaya oo baryaya oo caabudaya oo khalaaweynaya oo fikiraya miyu cidloonaya qof ilaahay la jooga ورنتي داسين ودرامي كرينو ومرحلة أي قارين إلى هاي وسهلة سبحانه وتعالى كان حبوب نيكا لورنشري حبيب ابن محمد يخلو في بيتي يساقنا قولي سوكو خلاوين شرو يسكفريج وحانو رنشري من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه ومن لم ينس بك فلا أنس إلى هاي يقف كان إشي سو أديك كوكو قبو سنين إشي سياني قبو سنين واني نصنين قف كان أديك كوهاشن عيد كلو هاشدابا يهلين ظنوني كالورنشر وحا ورنشر من علامات المحبين لله ألا يستأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه ذاتك محبين تا إلهي جعل علامة هذو وحا هو يمرك إلهي إلا تشوغان إنا عيد لا يسنين مركا عيدان الساقا هين آني وهاشنين waxa walaalayaal aynu ogaanaynaa dhibaatada ay nagu hayso macaasidu idan qodobka lixaad waxa weeye waxyaabaha ku keeni kara inaad cibaadada macaansato oo dhadhan inoo samayso dhadhanka dee cunada iyo cabitaanku uu samaynayo jirka uu samaynayo mid ka wanaagsan waa inaynu macaasida dayno waa inaynu macaasida ka tagno wax kasta oo ilaahay uu diidan yahay subxaanahu wa tacaala sharciga inoogu diiday waxaa laga yaabaa eegma uu qofku xaaraan u eegay inay basiirada qalbiga ka qaado luqmad xaaraan ahoo uu liqay inay qalbiga madoobayso nuurka cilmigana ka lumiso ibnu jawsi raximahullah ayaa baabka aad iyo aad caan uga ahaa wax badanna ka sheegi jiray sidoo kale yaxya ibn mucaad ayaa waxa uu isbarbar dhigayaa jidhka iyo ruuxda inuu mid waliba leeyahay bukaan iyo dawo waxa uu leeyahay saqamu ljasadi bilawjaac wa saqamu lquluubi bidunuub jidhku cudurradu ku bukoodaa qalbiga iyo ruuxduna dembigay ku bukoodaan فكما لا يجد الجسد لذة طعام عند سقمه فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع ذنوب شركو مركو بكو دعونا ذا ما دريما معان كذا وإذا قارقنا وقفك حنوصنا ولا قدر قيا ولا قوع العليا وحلا إلى ذا بل انتنا اسكو يردي دوذا لقدام بيكوتها ورددي ويكو أذكتها محاكا نوادم قشد حنوك سيدو كلا قلبي قنا وكبكو ذا يروح ذا قفكو noloshii dhabta ahay dembigay ku bukoota waa miisaankaasay saarayaan dadkii nolosha fiican haysta waxa toddobaadoo cibaadada macaankeeda inaga yareeyo inaynu dhadhamino ama aynu ugu raaxaysano siday salafku ugu raaxaysan jireen التقلل من المباحات waxyaabaha inoo mubaaxa inaynaan badsanina aynu yarayno ilaahay baa inoo xalaaleeyay cunada cabidda hamada iyo hurdada iyo waxyaabaha nafta ama jirku ku raaxaysto ilaahay baa inoo xalaalay laakiin in la badiyo oo qofku isiraada ka salgaar ama ka dhereg waxyaabaha cibaadada ka jeediyay kamid
أرنت أنا دتكي صالحين تآد بوجا ورمين أحمد بن حرب دتكي الزهاد هابوها وحولها عبدت الله 50 سنة إلهي كنت سندود بن عابدي فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء عبادة معان كذا ما نهلين شيرو صدح شيء أنا اسكداي تركت رضا الناس حتى قدرت أتكلم بالحق تدين أن رالي قليو وأنا اسكداي يبو كدبنا وحان أودي إن الحق كهد لكره وسيدو يهاي أنو شيء كره إلا قفكو هدي وداد رالي قلينا يكلمة حق ما أوران كره لفي الدوران بو بلابا ينو تشيروين كسو ورقو مجاملايو وأنا وحد شيء كرين إلا هبل بو يا يهبلاي وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين ضدك حنحنين الله صاحبنا وأنا اسكداي مركزان أودي ضدك وناكسنين الله صاحب الدين الدنيا بوحيو كرينيا وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الأخرى الدنيا دين أنا ذو معان سدنا وأنا اسكداي شيرا أن هلاي معانك آخرا عمل كي لو ديار قرابي صور من لذة العبادة عبادة دين الله هاي معان دليل بدن باشيغيه وحاول نبي الله محمد عطينا صلى الله عليه وسلم صدح الرباط قفكو إلهي سي وجد حلاوة الإيمان إلهي الرسول سيدو جعلي عيدك لو ما جعلا عيدو جعلانا إلهي درادي بو جعلي قال لماذا نو نعيا هيركا قفك قال معانك إيمانك هلا يبو لي مركا إنو كسو قادنا إنا وحي ودليشنا إنا نسكا معاني إيمان بو نبي الشيغي عليه الصلاة والسلام دادو معان حلوذادي يا مد شاه يا مد خضرادات شيغيس معاني إيمان بو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام هل كان لقوا معان سنة يا الروح ده وقلبك سيدو كلا أدو إيمانكم معان لا صلاتنا معان بين لاذي إيدي لهاي ودراسيو إلهي بين برينا آية النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي صحيحة وحكول حبيب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وحايدنكو هاي سنة الدنيا دانو لابون باتشعلا xaasaskayga xalaasha waa jecelahay udgoonkana waan jecelahay ishayduna waxay ku qabowsataa macnaha ku raaxaysataa salaada ayay ishaydu ku raaxaysataa bilaalna wuxuu oran jiray arixna biha ya bilaal inoogu raaxee salaada marka salaada inta aynu ku jirno hadii inagu aynu xoogaa cidhiidhiyo dareemayno oo ibleysku musbaaradiisii iyo irbadiisii inaga taagaya si aynu masaajidka uga orodno وهالكي لقوا نسنية لقوا راح يستني وقف وقت دير كو قادني سيدا النبي قلنا الشيخ عليه الصلاة والسلام نتابع يا شرو لو نشري عروة بن الزبير ابن عوام الله كرر للنوضة عروة هذا كان سربال وقتك قدعي وحال الدوان إلا قوية بركا وحال الله الشيخ إن ولا خاطيرته أو الشيخ إن يسوحين دونان baalkii dadka lagu ay ku sakhraami jireen bunjiga in la waraabin doono markaa wuxuu yiraahdaa uu sakhraami kari maaye bal salaad baan galayaa inta salaada ku jira lugta ha laga shaqaysto markaa kolka uu qofku salaada galo dareenkiisu uu isbedelayaa oo caalamka hoos uu ka tagaya caalamka saruu kacaya muraaqabada iyo jibada iyo jacaylka ku badan daraadeed ayaa heer gaaraya jirkiisu halku marayo uu dareemi kari waayo markuu salaadii macaasaday heer uu gaaray ayaa lugtii laga jaray mar ogaan wax qisa dhacday weey maxaad ula yaabaysaa ta quraan kariimka ilaahay wuxuu inoogu cadeeyay dumar markay nabi yuusuf jeclaadeen gacmaha jarjarayoon isogayn faqatacna aydiyahun gacmahoodii bay jarjaraya farahoodii bay hilib moodeen ay googoynayaan inna way eegayaan u laab qaaday marxalad la gaaro weeyo qofka bani aadamka maskaxdiisa wax dareemi lahayd ifraazaat bay soo daynaysaa iyo hormoono غيرaya xaaladii hore ahayd sidoo kale qiyaamul leylku waxa uu leeyahay habeenkii in ilaahay la isortaaga ramadaan iyo qeyrkeedba isaguna macaan buu leeyahay amr ibn al-mukandir amr ibn al-mukandir la oran jiro qiimo badnaa cibaado badnaa hooyadii baa waxay ku tiri إني أشتهي أن أراك نائما هو يمر وحن شعل هذا هردين أنكو أركو
hooyo walibana ilmaheeda had iyo jeer waa u yara damqataa waxay aragtay isagoo sara jooga dheereeyay habeen walba cibaadaysanaya markaa waxay istiri armay kow ka tidhaahdaa hurdalaan daraaddeed bal hooyo maruun aan ku arko adigoo hurda maqaalad qaaliya buu ku wuxuu yidhi ina alleyla la yaridu calaya fayuhawilunii fayanqadii calaya wamaa qadaytu minhu arabi hooyo habeenku wuu ii soo galaa markaa hami buu igu abuuraa hami aakhiro anoon hawshaydii ka dhammaynin buu weli dhammaadaa anigoo weli ka dhambaysanin habeenkii iyo cibaadada macaankeedii ayaa uu iga dhammaadaa buuhi adiguna hurdaad sheegaysa sidoo kale qiraa'ada qur-aanku markaad marxalad gaadheed wadeed ku celceliseed isdhegaysateed ilaahay hadalkiisa dhuuxdo dhadhan buu sameeyaa cuhmaan ibnu cafaan waxa uu ka mid ahaa raggii caanka ku ahaa ilaa la tilmaami jiray hal maalin inuu qur-aan ku dhammayn jiray dee bal faatixada un adigu dareer intay kugu qaadanaysa saasoo kale uu qur-aankii u noqday waxa uu lahaa low dahurat quluubunaa maa shabicat min kalaami illaah haddii qalbigeennu nadiif noqon lahaa ilaahay hadalkiisa kamuu dhargeen siduu u dhadhaminayo ee u macaansanayo sidaasoo kale infaaqu alinfaaq fii sabiili illah wa fii wujuuhi alkhayr meelaha khayr kale inuu qofku wax ku bixiyaa macaan bay leedahay macaankaasi markaa wuxuu ku ilowsiinayaa maalkaagaba waxa u qiimo badan inaad la hadhaba saasay ahaan asxaabtii nebigu ridwaanullaahi calayhim waa marxalad aynaan gaadhin oo ilaahay u sakhiray abu dalxa markuu qur-aanka ilaahay soo dejiyey isagoo dhiiri gelinaya waxbixinta lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun samafalkiiyo wanaaggaad doonaysaan gaadhi maysaan jeeroo waxaad jeceshiin wax ka bixisaan beertiisii faras magaalaha ku taallay buu bixiyey oo ilaahay daraaddii u bixiyuu nebiga ku wareejiyey calayhi salaatu wasalaam dee iminka fooqyadaa u dhaadheer ninka magaalada dhexdeeda ku leh dakhliga intaa alle ay ka soo gelayo inuu isagoo caafimaad qabo wareejiyo arrin weyn weeyo adag cidduu ilaahay u sahlo mooyaane sidaasoo kale abudaxdaax ninkii la odhan jirayna saasuu ahaa cilmiguna wuxuu leeyahy ladda wa xalaawa inuu qofka cilmiga baranayaa macaansado waa midh sheegaya inuu horu mari karo qofkaas cilmiga diiniga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy manhumaani laa yashbacaani daalibu cilmin wa daalibu dunya laba karaadana maka kani ma dhargaan qof adduunyo doonaya waa sida inagu badanay iyo qof cilmi doonaya qofku markuu cilmi doonayo ee uu aada u jecel yahay ee uu macaansado kama dharga buu leeyahy ibnu jawsi raximahullah oo caan ahaa oo qoraa weyn ahaa ee xikmado badanna soo ururiyay wuxuu leeyahy waxyaabahan ku gaadhay waxaa ka mid ahaa raqiifatan yaabisa ashrabu biha maaa nahar waxaan iska sidan jiray buu ihi xoogaa canjeero aha qallalan ama rooti ah webiga anag maraya amaanu wax ku ag akhrisanayna biyihiisana waan ku cabbi jiray ma danayn jirin buu ihi raashin kala duduwan oo jidhku uu ku taransado sidaan cilmiga u xiisaynayo soomku waxa uu leeyahy dhadhan buu leeyahy haadihi alcibaada dadka qaarkood marka ay soomaan ay ka seexanayaan ay soodhanayay gaajada ku dilina bal iska seexo ilaa inta la afurayo qaarkood ay ka sii warwarayaan macaan buu leeyahay salafuna saalix wakhtigoodii nimanba addoon bay soo iibsadeenoo waxay ka soo iibsadeen awliyadii ilaahay qiimaha badnaa qaar ka mid ah ee cibaadaysan jiray addoontana way la cibaadaysan jirtay waxay aragtay kuwii soo iibsadayoo raashin badan urursanaya maxaa dhacay bay xagga loo qaxayaa rabadaan baa soo gelaysaoo marka raashin badan baan urursanaynaa bay waa saynu yeello markaa waxay tidhi oo idinku laa tasuumuuna ilaa fii ramadaan mooye ma soontaan miyaa maya ramadaan baanu soonnaa bay idhaah waxay tidhi laqad kuntu cinda qowmin kullu zamaanihim ramadaan anigu qoladan ka ime iga soo kaxayseen wakhtigooda dhammaantii ramadaan buuba iska ahaa waa la soomi jiraye oo soonkaa dhadhan lagu hayee cunada dhadhan laguma hayn rudduunii ilayhim waan meeshan meelaan sii joogaya maaha igu celiya bay tihi qoladii soomi jiray aan la soomay igu celiya dad iska daaxoroo addoommahooda caynka ahaa yaxya bnu abi kaiir markay ramadaan soo dhowaato siday ugu soo udgoontae ugu soo carfayso u macaansanayo wuxuu odhan jiray allaahuma aslimnii ilaa ramadaan wasallim ramadaana ilaya watasallamhu minii mutaqabala ilaahu ramadaani gaadhsii
iyadana aniga isoo gaadhsiiyo soo wad kadibna iga guddoon isagoo la aqbalay walaalayaal cibaadada aynu xusayno macaankeeda waxyaaba inoo diidi kara waxaa ka mid a saa hore aynu soo sheegnay macaasida waxaa labaad oo ka mid a mukhaaladati innaas dadka dhexgalkooda oo la badsado dad la arag iyo ama dhib la arag bal adigu markaad halkan iminka iska wardiyaysa ama gurigaaga ama meheradaada iska joogto dembigaagu wuu yarya dadun baad u tegaysa dad bay kula xamanayaan qaar bay xaqirayaan waxbay akhriyayaan fara badan waxaagi way la degayaan hoosu macaash baa kugu dhacaya markaa dadka dhexgalkooda inaad yarayso markaa dee danun aad ka leedahay mooyaane taxawulu lcibaadaati ilaa caadaat dhadhanka cibaadada waxyaabaha yareeya waxaa ka mida waa taynagu badana cibaadadu inay caado iska noqoto xaafaddu qofku ka soo toosayaa bakhaarkuu tegayaa masaajidkuu tegayaa maqaaxiduu tegayaa meelahan la wareegaya caadigaa unbay ku darmanaysaa cibaadadu marka cibaadadu waa inaanay noqonin waxaan rootiiniga ama caadigeedu wadda wax ka duwan waa inay noqotaa saacaddii aad ilaahay ishortaagaysa arrinku aanu caadigii hore ahayn waa inay cibaadadu kula noqotaa sidoo kale nifaaqa waxaa la yidhaha allah inaga nabadgeliyo waa cudurrada qofka u diida dhadhanka cibaadada nifaaqa qofka hadday gasho ismaqashiin iyo istusnimo iyo is-aragsiin arrintaasina waxay keenaysaa cibaadadu inaanay u dhadhamine ay culays ku noqoto isagoo caajisa waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas cibaadada markay u kacayaan waa cagajiid baa ilahay uhi salaada ilaa dad bay istusayaane taana waxaa lagu garan karaa markaad kelida joogto xafiiskaaga aqalkaaga gurigaaga eed cibaadaysanaysa iyo masjidka dadku ku arkaya aad joogto waa inaad markaa ikhlaas iyo cibaado badanta laakiin haddaad marka dadku ku arkaya cibaadadaada qurxiso badiso waa lagu weheliyaa inaad dib isu raajacdo wey allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaaila baila warzuqna ijtinaaba اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارزقنا لذة العبادة يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا لذة العبادة اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة